laascaanood 15 sano ee la soo dhaafay waxay ahayd xabsi dusha ka fulan laakiin gudaha ka holcaysa habeenkii cid aan la garanin ayaa dadka la jeetay halka maalintii ciidamada Soomaaliland ay shacabka la jireen kacdoonka shacabka laascaanood ay ka bilaabmay dilalka qorsheysan ee laascaanood ka dhaca waxay Soomaaliland kaga jawaabtay inay dad hor la dhintaan iyagoo adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan xabsiyadu waxay haayeen kuwa ay buux dhaafsheen dad cabiraya fikradooda dadku waxay u qaybsanaayeen wax la xidho iyo wax la bacsado haddaba 15 sano kadib maxaa isbedelay shan qodob ayaynu diiradda ku saari doonaa laascaanood kow laascaanood hadda ka hor suurtagal ma ahayn in 10 qof ay isu timaado balse waxaa bedelay kumanaan shacab ah oo si xor ah aragtidooda iyo rabitaankooda u muujinaya labo calanka Soomaaliland ayaa lagu bedelay calanka dunidu taqaana ee Soomaaliya kaasi oo ka taagan goob kasta oo gobolka Sool ah saddex laascaanood ciidanku waxay haayeen kuwa shacabka ku dhibaateeyay gudaha laascaanood balse hadda iyaga ayay shacabku ugaarsanayaan qaarkoodna direeska ayaa lagaga dhigay bartamaha magaalada laascaanood ruux bixiniyo afar shacabka SSC oo lagu sheegi jiray inay yihiin dad kala qaybsan taas hadda meesha waa ay ka baxday dadku waa ay ka midaysan yihiin qadiyadda laascaanood iyo hirgelinta rabitaanka shacabka shan waxaa beenooday kelmadda ah iyaga ayaa istila balse taa beddelkeeda laascaanood waxay ku jirtaa bishii ugu amniga fiicneed 15 sano ee Soomaaliland maamulaysay dadkuna waa walaalo iyagu islaashanaya iyadoona aysan jirin cid ku dhex jirta ismada dhaqanka SSC oo qaarkood 15 sano ka hor ay laascaanood ugu dambeysay hadda waa ay yimaadeen iyadoo si weyn laascaanood loogu soo dhaweeyay garaad cali garaad jaamac imaanshihiisu waxay meesha ka saaraysaa damac kasta oo Soomaaliland kaga jira gacan ku sii haynta laascaanood dalkayaga iyo deegaankayaga iyo masiirkayaga hargeysa looga talin maayo nimaan annaga ahayna ka talin maayo laascaanood 15 sano kadib markii ugu horeysay waxay marti gelinaysaa dhammaan ismada dhaqanka SSC oo qaarkood laascaanood ka caaganaa amaba saanimaan jirinba laascaanood waxaa mamnuuc ka ahaa kulamada lagu taageerayo qadiyadda midnimada Soomaaliya iyadoona uu dambiile ahaa qofka afkiisa laga maqlo arrimahaas hadda laascaanood waa mid ka duwan laascaanoodii aad taqaanay waxaa jira amni iyo kala dambeyn buuxda shacabku iyaga ayaa amnigooda ilaalinaya mana suurtagal ah in qof uu sameeyo wax amniga khalkhal gelinaya laascaanood waxaa si rasmi ah uga furmay shirka ay ka tashiga bulshada SSC waxayna u muuqataa inuu yahay mid soo gabagabeynaya joogitaanka Soomaaliland ee laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool mukhtar abdi jaamac warbaahinta halbeeg media laascaanood